صلاة وواجب جماعين تكوجد تابانا في عنو جماعات كحاضرته هنا ضدك برينا وواجب واد حوكسته ومضوا هنا فايد صوصار تديراد هنا صوصار تنا ووحلو باهي هدي إنه دهنا ومضوا دمي هورديدو ورديجها قاضته هورديدو هي أنت وغير اللغون نولان كرون مركب ساق بتفريسو ودتكم مركب يو علم يان دختر لبران أو يان فلك لبران أو يان حساب لبران أو يان هندسة لبران أو يان كيمستري لبران أو يان فيزيكس لبران وحاصل دمي وادون كفاني جابك وتعلقات هي نتيجة ما حين نقول سواء حصابة حيساء أمة دمان تد فقراء دمان تد جاهل كأن الله شيء أدون سيء ما مشوا دمان تد بقطة ووحدة ويان الله هينين يعني ضدك كدول نول باراسايت سبا صوابة حية ضد بشرية ذك لا كدول نول وحلوا بها هي وحويان وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم بالليل وكيف تعد هذا جهل يبقى وضحيه كيف تعد هذا جهل يفقر وضحيه ساشي شوي دين تلي وحويان مركا نوعا هدي لو نولاده حنون كافافيو عيد ويسل له هلي ماي جهل كافافيو عيد نولش هورو مرسل له هلي ماي نولش دم با اسميسا مسلمين تي هوري waxay caanka ku ahaayeen ee dadkan sida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal mas'alada u dhigtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kala ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labada mas'ale ma isla fahmi karaysa shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneer ayuu haduu hilib yar oo shiilan cunayso dhan jiray arma kaniki aakhira ku idaariya idan ma yahayn wax la'aan ee waxa iyadoo gacantooda ku jirtaan ay qiimo badan u sameeyeen inaga laba mushkila meesha taala dad badiyay aakhiran ku socona adduunkaba uma baahnin dabeetana un gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tiri adduunyan raadacaynayna dabeetana adduunkan iska bidbidsanayna meelaha duulduul oo kolba siyaaxad iyo daar yar cagaaran iyo inta noloshaba inta moodo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay hayeen saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa hayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan le muntajiina marka ay noqoto conceptionna waxa hayeen dadka ugu yar juhdiga xaqiiqigiina waa ka culama الحديث ركمده oo waaweyn oo salafkiyaba waxay oran jireen nin kamidaba wuxuu yiri ardadiisi isagoo la dardaarmaya waryaadeen anigu walaalahay baan ku kornoolo wax la cunaa buu yiri idinka waxaan idin kula talinay inay xoogsadaan buu leeyahay inta yartiin xoolo dhaqda waa nin muxaddisiinta waaweyn la yaqaan kamida muxaddisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata ama se xadiiska ku xoogsada muxaddisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin dadana waxay oran jireen idin sheegay in xadiiska idinka wax nasiyo mooyaan marka lacag la siiyay in xadiiska sheegi jireen marka ahlul xadiiska markay ka waramayaan ragay maagaan bay ku jiraan oo yiraahdaan xadiiskoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto wala professor banay wala ustaad banay wala waxa kan banay malihi ma banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd in wixiisana xoogsado cidina aanay u manna sheegan marka la dawlad wala shicib wala qofna aanu u manna sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheego hadana isagoo inuu dadka u manna sheegto cilmigiisa waa aakhira iyo ajar ku helo muuminka xaqqa ah marka waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sareeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo hadaa si loo oranayo xoolaha badan la shaqeynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynu dhisayno laana waayo waxaynu soo saarayba waynu ama muntajiin bayna ahayn ama mustahlikiin bayna labadubana waa waxa fiicnay muntij noqo mustahlikina ha noqon wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso oo horumariso westernkayn maanta joogna carruurteena islamic school baynu laana maxaynu ugu weynay ama waxbayna soo saarin oo caydaynu ugu filaatay ama wixaynu soo saaraynu liqnayo wala boobna labada goorba waa khasaare taaganima waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'id kan baa loo baahay ayleena nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu Madiina yimay masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nabigu u dirayay yaalaha yuhuud baa lahay yuhuudda la booba nolosha la xoogsada lala meeshu lahaa Abdurrahman ibn Abdulluna ala suuq wa suuq al-yahud suuq banu Qaynuqaa baa la geeyay meel kale lama geeynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku koobay cinwaankii la yidhibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bil aakhirah adduunku aakhirah xidhiidhku la leeyahay waa maxay xidhiidhku la leeyahay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhirah loo marayay haday cibaado tahay nolosha dhan buu cibaado warka xoogsiga xalaasha ay cibaadadu kamidi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu kamidi kafaafka aad noloshaada adigu dabari kartaa cibaadaday kamid bariyado aad iska dayso ar social wax weydiisan cibaadaday kamid inaad isku fillaata cibaadaday kamid qofka muslimkii inuu noqdo model lagu daydo cibaadaday kamid qudwa xasana inaad noqoto cibaadaday kamid in marka tusaale la soo qaadanayo aad adigu noqoto qofka modelka xumaha loo qaatay ciida ku nool diin yariday kamid
bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqono hadday iyagii adiga ku yasaan waa diin yari haddaynu inagu noqono dadka diinta ka hor taagan idan waxaan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yu qalbigaaga geli adduunkuna ha noqdo طريق آخر lagu gaadho wallahu a'lamu billahi tawfiq. Assalamu alaykum.